muddooyinkii ugu dambeysay deegaano badan oo ka tirsan Somaliland oo u badan kuwa miyiga ayaa waxaa ka soo yeerisay qayladaan ballaaran oo ku aadan biyo la'aan soo foostartay deegaanadaasi iyadoo dadka deegaanadaasi ay baaqyo kala duwan direen isla markaasina sheegay in aanay haysan biyo ay noloshooda ku maareeyaan ayaa haddana waxa soo taraysa cabashada ka soo yeerisa booyadaha kala duwan ee biyo dhaaminta u sameyn lahaa deegaanadaasi cabashada booyadaha ayaa salka ku haysa qiimaha kor u kacay ee shidaalka ee Somaliland maalmihii la soo dhaafay ayaa qiimaha shidaalku si xawliya sare ugu kacay booyadaha kala duwan ayaa waxay sheegeen haddii ay biyo dhaamin u sameyn lahaayeen dadka deegaanadaasi aanay isgalaynin qiimaha shidaalka lagu iibinayo iyo deegaanada oo aad u fog biyo dhaaminta doonaya iskaashatada ay ku midoobeen booyadaha kala duwan ee biyaha dhaamiya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan diray waxaana warbaahinta la hadlay Xiis Cumar Maxamed gudoomiyaha iskaashatada booyadaha iyo nabadoon Maxamed Xiis oo ka tirsan iskaashatada booyadaha baaqooda ayaa u dhignaa sidani halka waxaan ku qabananaa shir jaraa'id oo ka hadlaya biyo la'aanta Shidaalka duruufta dadka haysato aad waxa la galay waxaan u sheegnaa xukuumadda Somaliland in la galay waqti adag oo biyo la'aan ah in agooma biyo la'aan inay danyarta biyo la'aaday inta waxa dheer haddana inuu shidaalka kacay oo shidaalka aad u qaaliyoobay qoladayadii booyaduhu waxaanu ka caabananaa shidaalkii oo nagu kacay shidaalkii oo qaaliyoobay biyo fogaaday dadkii oo baahi badan ay hayso hadiya habeen ma seexano biyo la'aanta wadanka ka jira waa ogtiin dawladda iyo xukuumaddu waxaanu aad hoosta naloo eegaanu leenay biyo la'aan waxaa jirta shidaalkii oo kacay shidaalkii oo aad u qaaliyoobay aanan tahli karin dadkii oo 60kii kunaan ku subanay aan qaarkood bixin karinba marka waxaan xukuumadda ka codsananaa inay hoos noo eegaan oo dadka eegaan oo waqtiga eegaan oo shidaalka naga jabiyaan oo shidaalka culaysna laga saaro shidaalka culays badan buu marayaa danyartiina way ku goday agoomaa jira dad danyaraa jira dad aan lacag lahayn baa jira miyigii baa lagu haraadanyay miyiga magaalana way isku wada xidhantay way wada haraadantay marka mudana madaxweyne maadaama madaxii u sareeyay waxaanu ka codsanaa inaad noo amarto wasaaradaha hoose ee ku shaqle oo shidaalada la jabiyo oo dadka la eego waxaanu halkan kaga codsanaynaa xukuumadda ugu horeeya Muuse Biix Cabdi iyo wasiirkiisa ganacsiga iyo dhammaan madaxda kale ay qusayso hawsha aanu ka cabanayna aanu saxaafadda u taaganahay hawshaasoo ah shidaalka kacay ee ilaa xadka labadii bilood ee u dambeeyay u kordhay iyo biyaha fogaaday ee iyaguna jiilaashaday iyo danyarta dunuufaysan ee ku dhaqan waddanka saddexdaa arrimood ee isfuulay ayaa shaqadayadii culays badan saaray waanu shaqayn karlaanahay waanu adeegi karlaanahay dunuuf darteed shidaal kacay dartii masaakiintii oon lacag hayna darteed waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa uu madaxweynuhu hogaaminayo wasiirka ganacsiga ka codsanaynaa dhammaan madaxda kale ka hoosaysa aan ka codsanaynaa in ay farageliso shidaalka waddanka yaalla ee labadii bilood ee u dambeeyay sida xun u kacay ee sixir bararka saayidka ah in hawshaa la farageliyo in hawshaa wax laga qabto in waxa weeyaan arrintu ay caadi noqoto danyartuna ay wax badan insha Allah tacaala ay ka macaashi doonaan iyaguna ka codsanaya kullay imika halkan ma joogaan danyartu laakiin waxay codsanayaan iyaga laftoodu in wixii walba laga jabiyo oo shidaalka laga farageliyo